بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan bilaabo kooraskii A+ka buuggii waa diyaariyey saa idiin sheegayba qofkii raba buugga interest gareynayo waa diyaar waaye haddana maaragtay cashirkii ayaan bilaabeynaa maanta laakiin waxaan rabnaa hordhac inaan sameeyo wax yar hordhac ah qiimaha la gado A+ka qaybta fundamentalka bilowga ah macnaha qiimaha dadka macnaha caalamka kostigiisa meeqa waaye meeqaa la gadaa kooraska meeqaa la gadaa macnaha inaan maaragtay faa'iidada kooraska uu leeyahay inaan fahanno ayaa muhiim ah oo isla ogaano iyo inta la gado ayaan rabnaa inaan ogaano marka fiir hadda websitekan oo kale waa websiteyada bixiya maaragtay koorsooyinka ayuu ka mid yahay haddii aan fiirin oo kale bundlekan A+ Compatia Certification Training A+ iyo Network Plus wuxuu gadayaa hadda fiiri wuxuu gadayaa 3,995 ayay gadayaan fiiri 3,995 dollar ayay gadayaan macnaha kooraska waa kooras qiimo badan waaye oo aad u qiimo badan oo maaragtay oo faa'iido badan laga helayo waaye kanna waa hadda Network Pluski waa ujeedaa Training Network Plus waaye Compatia Certification Training Network Plus waaye kanna waxaa waaye Compatia A+ Training Post kan waa labadii isku jiro A+kii iyo Network Pluskii isku jiro waa laakiin haddii aan inta imaano Compatia kan anaga hadda aan qaadanayno waa kana A+ka waa kan waxay gadayaan 2,495 ayay gadayaan marka kooraska qiimahaas ayuu marayaa ani ahaanna macnaha free ayaan idinkugu dhigayaa buugga la idinka gadayaa buuggana qiimo badan idinkama siinayo waxaan idinka siinayaa $6 iyo bar ayaan idinka siinaya buugga maadaama daabacaad ay gashay si dadkayga aan ugu faa'iideeyo totally free waaye qofkii wax ku darsan karo oo maaragtay janalka ku caawinaya ama si kale macnaha waa iska gooni waaye taas qofkaas maaragtay isaga ay maaragtay haddii wax ku darsanayo dhib ma laha laakiin aniga totally free waaye kooraskayga haddii aan u noqono marka inta waxaan ogaanay macnaha qiimaha oo kooraska uu maraayo haddii aan marka u noqono buuggii oo cashirkii aan bilaabno waxaan bilaabeynaa marka cashirka laba qayb ayuu ka kooban yahay qaybna waa theory ahaan oo maaragtay aan idinkugu sharaxaya qayb kalena practical ayaan u sameynaynaa oo lab ayaan sameynaynaa marka buuggiina waan sameynaynaa lab aan diyaariyey oo aniga aan qorayna waan sameynaynaa marka buuggii iyo labka adhowdii waa isku gadanaysaa waa package waaye $6 bar aan kaa siinayaa waa idinkugu darayaa exerciseka marka qofkii muqdisho joogo kale lambarkeyga ayaan kusoo qoraya shaashada tiktok iyo youtube-kaba labadaba marka qofkii rabo oo danaynayo buugga iyo cashirkan kooraskan diyaar waaye waa maaragtay maantana waxaan bilaabeynaa cashirkii ayaan bilaabeynaa marka haddii aan cashirkan usoo noqono kan waxaa la yirahdaa system case-na waa la dhahaa waa qaybtii ay all the computer waa hardwareki waa hardwareki hadda ka hadlaynaa softwareki ma gaarin computerka wuxuu u qaybsamaa laba qayb hardware and software hardwareka muxuu yahay hardwareka waa anything oo aad taaban kartid wax walbo aad taaban kartid physical ah oo taaban kartid waxa waaye waa hardware hadda system unitskan oo kale waa hardware waaye waxaa system unitka marka waxaa waaye waa qaybtii ay all components dhan ay ku jireen ramkii hadduu ahaa lahaa CPU-ga hadduu ahaa lahaa motherboardkii iyo hard drive-kii iyo waxa dhan meesha ay ku jireen waaye waxay ku jiraan system unitka marka qof walbo bilaaw ah oo IT bilaaw ku ah oo aan IT waxba ka aqoonin uu la qabsan karaa koorskan maxaa yeelay waa qaybaha ugu hooseeya waa marka system unit ayaa lahaa kan waxaana ku jira all the components ayaa ku jira oo muhiimka ahaa ramkii iyo CPU-gii iyo hard drive-kii iyo waxaa ku jiro power supply ayaa ku jira waxaasoo dhanna mid ayaan u qaadan doonaa ha ku wareerin waa isdhihin waxaan uu tirinaya maxaa waaye waa wax walba hal ayaan u qaadan doonaa laakiin hadda waxaan rabnaa inaan ogaano muhiimadeena in system case-kan uu house gareeyo oo ay ku jiraan all the most components inta badan components ay ku jiraan marka intaas rabnaa inaan isla fahanno marka inta hadda aan sheegnay oo system unitka ayuu intaan noo qeexi doonaa marka wuxuu ku leeyahay fiiri the system unit also commonly referred as a CPU na waa maaragtay waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa or towerna waa la dhihi karaa is the main components waxa waa qaybta ugu muhiimsan of a computer qaybta ugu muhiimsan ee computerka waa af Soomaali ahaan aan u sharaxayna English waxba ha ku wareerin af Soomaali ahaan ku fahan
waxa waaye system unit waxaana la dhihi karaa CPU na waa la dhihi karaa towerna waa la dhihi karaa macnaha CPU wuxuu ka wadaa CPU ayaa gudihiisa ku jira oo qaybta ugu muhiimsan oo maskaxda ahayd ayaa ku jira towerna waa la dhihi karaa so marka waa is the main component waa qaybta ugu muhiimsan ee computerka uu leeyahay waa qaybtan boxiska waa qaybta ugu muhiimsan ee computerka leeyahay which houses most of the other devices that necessary for the computer to function marka intaas direct macnaheeda intaas macnaha guudan ku sheegaa marka wuxuu ku yiri which houses most of other devices dhan meesha lagu house gareeyo oo lagu haayo waayo ayuu ku leeyahay that are necessary for the computer to function kaasoo muhiim ah in computerka uu shaqeeyo kuwaasoo muhiim u ah computerka inuu shaqeeyo waxaa macnaha muhiim u ah in device-yada ku jiro computerka ay ku shaqeeyaan si computerka u shaqeeyo device-yadaas waxay ku jiraan system unitka ay gudihiisa ku jiraan system unitka marka traditionally wuxuu ku leeyahay marka wuxuu ku leeyahay it compromise chassis wuxuu ka wadaa qaybahan oo darbiga oo saas u wareegsan ayaa chassis lahaa oo qolofka ah ayaa waxaa lahaa chassis ayaa lahaa an internal components waxaa macnaha gudihiisa ku jira internal components ayaa gudihiisa ku jira maxaa ka mid ah marka internalkaas gudihiisa ku jiro macnaha waxaan wuxuu house gareeyaa all the componentski CPU-gii RAM-kii waxaas u rabo inaan ku sheego marka wuxuu ku leeyahay componentskaas oo internalka ku jira maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah such as a system boardka wuxuu ka wadaa motherboardkana waa u tegi doonaa asagana system boardka waxaa la yidhaha motherboardna waa la dhahaa system boardna waa la dhahaa waa RAM-kii iyo CPU-gii meeshay ku jireen oo waaye waxaa kaloo ku jira the microprocessor ayaa ku jira microprocessorkana waxaa la yidhahdaa CPU-gana waa la dhahaa asagana kana system boardkana motherboardna waa la dhahaa system boardna waa la dhahaa CPU-gana waxaa la dhahaa microprocessorna waa la dhahaa waxaa kaloo memory moduleska wuxuu ka wadaa RAM-kii uu ka wadaa kan wuxuu ahaa CPU central processor unit-ki waaye kanna waa RAM-kii waaye marka system boardka waxa waaye waa hooyada computerka motherboardka waa hooyada computerka ayuu ka wadaa kan microprocessorkan wuxuu ka wadaa maskaxdii computerka waa CPU-ga memorygana waxaa waaye waa temporary storage waxaa laga wadaa si kumeel gaar ah ayuu datada u hayaa oo maaragtay informationka uu kugu haynaa si kumeel gaar haddii computerka la dambiyo datadaada way lumaysaa waxaa kale oo system unitka ku jiro system unitka waxaa kaloo ku jiro disk drive-ka waxaa waaye hard drive-kii waa storage-ki waa storage-ka waxaa waaye meesha waxa lagu haysto lagu keedsado oo waxa aad dhiganaysid faylashii iyo meesha la dhigahay ayaa waxaa la yidhahdaa disk drive hard drive-na waa lahaa disk drive-na waa lahaa waxaa kaloo jira adapter carka waxaa waaye internetka meesha uu galaayo qaybta internetka fiilada internetka meeshay gelayso ayaa waxaa la yidhahdaa adapter carka network carna waa la dhahaa network carka macnaha adapter carka waxaa la isku dhahaa video carna waa la dhahaa network carkana waa la dhahaa marka waxaas oo dhan waxay galaan system unitka ayay galaan marka si ah ku wareerin macnaha waxba ha ku wareerin way fudud yihiin marka waxaa adapter carka saas u faham wuxuu ku leeyahay the power supply qaybtii dabka ay ka helaysa computerka meesha dabka uu ka helayna wuxuu ku jiraa system unitka ayuu ku jiraa waxaana la yidhahdaa power supply ayaa yidhahdaa waa qaybta dambe ee computerka oo fiilada powerka ah oo korontada ay gelayso waaye waxaa la yidhahdaa power supply waxaa kaloo ku jira vaniski iyo qaboojinaya vanin waxaa waaye geedka marawaxadda wax wareejiso iyo other cooling iyo waxyaaba kaloo wax qaboojiya dhammaan waxay ku jiraan si computerka uusan u kululaanin vankan iyo coolingkan systemka waxay ku jiraan system unitka ayay ku jiraan marka wuxuu ku leeyahay and the ports for connecting waxaa kaloo oo system unitka gudihiisa ah portyadii fiilooyinkii meesha ay ku xirmayeen oo dhanna waxay ku jiraan system unitka ayay ku jiraan portyadii oo dhan oo maaragtay connectingka lagu sameynayo fiilo markaa rabtid inaa keyboardka oo kale fiilo ay wadataa fiilada xaggay gelaysaa waxay gelaysaa system unitka gadaashiisa ayay gelaysaa mouse-kii oo kale wuxuu gelayaa system unitka gadaashiisa ayuu gelayaa marka wuxuu ku leeyahay external componentska dhammaan wixii externalka banaanka fiilooyinka ka imaanayo oo dhan mouseka hadduu ahaa lahaa keyboardkii waxaasoo dhan haddii ahaa lahaayeen waxay gelayaan system unitka ayay gelayaan monitorkii such as wuxuu ku dhahay monitorka wuxuu ka wadaa dhalada oo muuqaalka aad ka helaysa waxaa la yidhahdaa monitorka oo muuqaalka noo soo saaraysa keyboardkii isagana waxaa waaye waa keyboardkii caadiga ahaa fiiladiisi waxay gelaysaa system unitka ayay gelaysaa mice wuxuu ka wadaa mouseka ayuu ka wadaa waxay gelayaan iyo other deviceska wuxuu ka wadaa
camera hadday noqon lahayd, maaragtay microphone hadduu noqon lahaayo kale maaga qofka markuu ku hadlayo fiilo ayuu wataa, fiiladaas xagga gelaysa gadaal, speakerki xaguu galaya, speakerski qaybtii sameecadaha xaggay galayaan, waxay galayaan system unit gadaashiisa ayay galayaan. Marka system unitka waa muhiim, intaas marka hadda oo Englishka uu ku qoray buugga waa idiin af Soomaaliya, af Soomaali ayaan idinkugu sheegay oo maaragtay mid ayaan idinkugu sheegay wixii waxba Englishka ha ku wareerin, macna ahaan u fahan, macna ahaan guud u fahan in maaragtay system unitka uu house gareeyo oo ay ku jiraan RAM-kii, CPU-gii iyo kuwaasoo dhanna mid ayaan u qaadan doonaa. Maaragtay keyboardkii iyo mouse-kii inay gadaal uga xirmayaan, speakeradii gadaal uga xirmayaan, power supply-gii qaybtii dabka inay ku jirto, system unitka inay maaragtay gudihiisa ay ku jiraan. Marka system unitka waa taqaaniin, waa computerkii weynaa oo qaybtiisii oo hoos la dhigaayay waaye qaybtan. Laptopyada ma leeyihiin system unitkan? Way leeyihiin, laakiin waa la soo yareeyey. Kan hadda waa laga gudbay oo maadaama space badan uu cunaayo, laakiin kambaniyada way isticmaalaan. Laakiin laptopyada hadda waa la isku soo yareeyey, wax yar ayaa laga soo dhigay. System unitkii oo la soo yareeyey, keyboardkii iyo mouse-kii iyo wixii dhan inta la soo yareeyey ayaa waxaa laga dhigay laptopkii laga dhigay. Marka system unitka waa laga gudbay oo waa la isticmaalaa weli, laakiin hadda laptopkana waa la isticmaalaa. Asagana system unit wuu leeyahay, laakiin waa la soo yareeyey oo waa la isku soo yareeyey. Marka saas inaan fahanno waa muhiim waaye. Waxaa kaloo jira desktop caadi ah oo kan oo kale ah oo dhaladii ayaa waxaa lagu daray system unitkan. Waxaa la isku yiraahdaa ayadana all in one ayaa la isku yiraahdaa. All in one ayaa qaybtaasna la yiraahdaa. Qaybtan waxaa la yiraahdaa desktopka caadiga ahaa waaye oo aan isku xirnayn oo system unitkiina gooni u yahay, dhaladiina ay gooni tahay. Iyo keyboard muxuu ahaa laptopkii oo asna gooni ah. Marka maxaan baranaa marka system unitkii oo gooni ah, waxa oo ay ku jiraan motherboardkii wixii dhan ay ku jiraan, iyo all in one kii oo ah oo la isku keenay dhaladii iyo system unitkii oo la isku xiray dhammaantood oo hal xaba laga dhigayna wuu jiraa hadda, waa la isticmaalaa. Iyo laptopkii oo asna la soo yareeyey, laakiin wixii RAM-kii iyo CPU-gii dhan waxay ku jiraan laptopkii inta la soo yareeyey ayaa la geliyey oo system unitkii ayaa la soo yareeyey, macnaha waa la soo yareeyey, wax yar ayaa laga dhigay. Marka intaas rabna inaan maaragtay isla fahanno. Maanta waxaan baranay system unit muxuu yahay. Marka qof walba buugga hadduu rabo, buugga wuu soo codsan karaa, wuu maaragtay waa usoo dirayaa. Qof walba Muqdisho joogo, meeshuu ka jooga baa loo soo dirayaa oo waa loo keenayaa. Marka qofkii rabo oo interest gareynayo diyaar waa. Marka hadda waxaan qaadanaynaa marka laabkii ayaan qaadanaynaa. Waa slow waaye computerka, marka iska dul qaadano. Okay, laabka haddaan u imaano, waa kana laabka waxaan qaadanaynaa display-ga. Qaybta muuqaalka see loo bedelaa. Muuqaalka wuxuu leeyahay in maaragtay qoraaladii aa yareyso ama aa weyneyso, muxuu ahaa iska yareyso ama aa weyneyso, ama aa samey karto muxuu ahaa screen resolution-ka inaad maaragtay ka dhigan karto meesha ugu habbooneyd ay ugu talagashay Microsoft ay ugu talagashay. Marka waxaan baranaynaa marka display-ga sida loo bedbedelo, sida loo weyneysto, sida loo yareeyo. See loo sameeyaa marka? Wuxuu ku leeyahay marka laabkan wuxuu ku saabsan yahay display-ga. Wuxuu ku leeyahay number 1 go to setting tag, and then system tag, and then wuxuu ku leeyahay in the system wuxuu ku leeyahay display dheh. Intaan number 1 ayaan sameynaynaa. Waxaan tegaynaa kan hoos ka dhigno. Waxaan tegaynaa start aan tegaynaa ama qaybtan hoosaan click siiyey. Settingska waa kana, settingska taguna dhahay. Settings ayaan tegaynaa. Settingska noo furayaa. Kadib waxaan tegaynaa system. Kow waxaan tagnay start ayaan tagnay. Start aan tagnay. Kadib settingska ayaan tagnay. Setting markaan tagnay waxaan noo furmay page-kan ayaan noo furmay. Page-kan ayaan. Kadib waxaan tegaynaa system ayaan tegaynaa. Waa kana marka. Waxaan noo soo baxay marka system markaan tagnay display-ga ayaa noo soo baxay. Midka ugu horeeya maxaa waaye display-ga waa. Display-ga marka waxaan sameyn karnaa in aan yaryareyno fiiri. In aan yaryareyno muxuu noqonayaa mugdi ayuu noqonayaa fiiri. Sida mobilka oo kale waa weyneyn kartaa fiiri. Iftiin ayaa ka dhigi kartaa. Taas waa sameyn kartaa. Inta marka change wuxuu ku leeyahay change the size and text up and other items.
marka midka macnaha kugu habboon Microsoft waxay ku leedahay marka 100 waa ka dhigi karnaa, boqolkiiba 100 waa ka dhigi karnaa, boqolkiiba 25 waa ka dhigi karnaa, boqolkiiba 50 waa ka dhigi karnaa, boqolkiiba 45 ayaan ka dhigi karnaa. Marka asaga wuxuu nu dhahay, wuxuu nagu advice gareeyay fiiri, recommended waxaa laga wadaa waxaan kugu talinayaa, tala aan ku siinayaa, Microsoft ayaa ku dhahayso 100 iyo waxaa ka dhigtaa iyo 50. Haddaan ka dhigno kale 125 ama 100 haddaan ka dhigno wuxuu soo noqonayaa aan aragna bal. Wuu yaraaday ma jeedaa? Aad ayuu u yaraaday fiiri. Marka waa bedelaynaa, waxaan ka dhigaynaa recommendedkiina aan ka dhiganaynaa. Waa kana kaas ma ahan. Waa kana waxaan ka dhigaynaa recommendedkiina muxuu ahaa? Hadda muxuu noo joogaa 100 uu noo joogaa. Waxaan ka dhigaynaa 150 ayaan ka dhiganaynaa. Adi mar walba waxaa fiirisaa recommendedkan. Recommendedka waxaa waaye waa meesha ugu fiican waaye. Microsoft ayadaa soo saartay Windowska marka way taqaanaa meesha ku habboon. Kan display resolutionka waa qaybta muuqaalka. Haddii aan isla fiirina ayadana fiir. Haddii aan ka dhigno haddaan ka dhigno ayada maxay leeyihiin 120 times 180 recommended waay inay leeyihiin ujeedaa. Laakiin anaga daarabna waxaan ka dhigi karnaa waxaan ka dhigaynaa fiiri 800 iyo 600 aan ka dhigaynaa soo noqonaya fiiri saanu ka noqonaya. Waa qaab aad u xun waay oo aan habboonayn waay. Marka revert aan leenahay ugu celi aan leenahay meesheeni waxaan ka dhiganaynaa adi mar walba waxaa ka dhiganaysaa recommendedkan waxay ku advice gareeyaan ayaad ka dhiganaysaa. Marka laabka saan ayaa loo sameynayaa markaa rabtid screenka displaygaaga inaad saxato meeshaan ayaa waxaa imaanaysaa start settings kadib waxaad tegeysaa fiir haddaan noqono system ayaad tegeysaa kadib waad bedbedeleysaa marka qaybihii aa wax ka bedeli lahayd waa inta. Kanna waxaa waa landscape-kan waxaa ka dhigi kartaa computerka ayuu wareejinaya wuu dabagedinaya. Hadda kanoo kale haddaan tigsiina fiiri muxuu sameeyey computerkii wuu dabagediyey mujeedaa. Marka hadda waa ka noqonaynaa fiiri. Marka landscape-kan waxaa waaye computerkii wuxuu geesgeeskaa noqon karo. Marka inaad bedela kartid waay. Waxaasoo dhan marka qaybta displayga ayaa laga sameeyaa oo hadda aan laabka aan ku qaadanayna ayaa laga sameynaa. Marka cashirkeena maanta waxaan ku baranay system unit-kiina waa baranay displaygana sida loo bedbedelana waa baranay. Marka laba qayb ayaan baranay oo midna practical u ahaa midna maaragtay wuxuu ahaa displaygii oo aan qaadan. Marka waa kana displayga fiiri hadda waa kan wuxuuna dhahay go to settings. Laabkan anaa diyaariyey oo sida qaabka u tegeysid waaye wuxuu ku leeyahay settings ka tag. Haddana waxaa tagtaa system tag. System markaad tagtid waxaa tagtaa qaybta displayga tag. Marka wixii la beddelaya marka lambar mar waxaan dhahnay change size-ka iyo waxaa ku bedeshaa 150 150% recommended-ka ah ka dhigayaan ku dhahay. Haddana mid labaad maxaan dhahnay waxaan ka dhignaa 119 times 80 oo recommended-ka ah tagayaan ku dhahnay. Landscape-kii oo aan gedgedinaynina waa kana. Marka waa ka tixraacaysaa laabka wuxuu ku fiican yahay waa kuu sameeyey qaab meeshaad tegeysid iyo wixii dhan ayaan kuu sameeyey. Marka si uu kuu caawiyo oo aad ugu dhibtoonin waa tixraac waaye lambar 1 saas samey, lambar 2 saan samey, lambar 3 saan samey waa laabkii oo practical ah. Marka cashirkeena maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.